muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo ay ku soo badanayeen magaalada Hargeysa adeegga caafimaad balse goobtan ayaa si rasmi ah looga daafuray magaalada Hargeysa goobtan ayaa qaban doonta adeegyada noocyada kala duwan adeegan ayaa u khaasa dhammaan bahda sportiska halkani waxa ku maraya qaybaha kala duwan ee ciyaartoyda caasimadda Hargeysa oo adeegani loogu sameeyo caafimaadkaasi friya ciyaartoydan ayaa dhaawacyadii ka soo gaaray koobkii championka halkani lagu la tacaalaya tan ayaa noqonaysa markii ugu horeysay ee si rasmi ah looga hirgeliyay adeegani Somaliland doctorkan adeegan daafuray ayaa ka warbixinaya iyadoo si rasmi ah xariga looga jaray dhammaan ciyaartoyga Somaliland oo dhan ciyaartoyga geeska inoo degan oo dhan wuxuu ugu bashaareynaa inaan u furnay xaruntan cusub ee u gaarka ciyaartoyga Dad Sports Injury Center oo ah xarun dhaawacyada ciyaaraha uu magacoodu ku xardhan yahay xaruntan waxay qaban doontaa insha Allah waxyaalo badan oo dalka dibadiisa loo aadi jiray oo lagaga maarmi jiray daryeelka ciyaartoyga oo waxa laga yaabaa in wax fudud oo laga daaweyn karo in ciyaartoyga dib ay ku keento mustaqbalkiisa ciyaareed marka dhammaan ciyaartoyga ugu bashaareynaya oo ku soo dhaweynaya xaruntan waxaan rajeynayaa insha Allah inaan goboladoo dhan xarumo ugu furi doono marka ay ciyaarayaan ciyaaraha ku jiraana aan garab taagnaan doono oo haddii garoonka ku dhaawacmaan haddii lamitada ku dhaawacmaan intaba aanu si dhow ula socon doono si emergency aanu adeeg caafimaad ugu fulin doono insha Allah aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada sports ku helaan xarun caafimaad oo gaar ah dhalinyarada Soomaaliya gaar ahaan dhalinyarada caasimada bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xamse Shulaac waxaan aad ugu faraxsanahay maanta dhakhtarka cusub ee magaalada Hargeysa laga furay dad inaan maanta aan ka helno daaweyn aan u tagi jirnay dalka dibadiisa aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan adeeg wanaagsan aanu ka helno dhakhtarna lagu keenay Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxaan u sheegaa dhalinyarada sportska gaar ahaan kubadda cagta maanta in dhammaanteen baa la noo furay dhakhtar ku takhasusay daaweynta jilbaha seedaha iyo wixii la mid ah marka insha Allah waxaan rajeynaynaa in dhalintu gudbigooda halkan ay ma doonto bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu yahay Axmed Cali Nuur noo magacay Axmed Arabo kulleeyda xarun muhiim oo ciyaartoyda loo furay magaalada Hargeysa laga furay soo dhaweynaa bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu yahay Khadir Mustafa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta aan joogno dhakhtar cusub oo loo furay sportska waxaan loo karaa waa dhakhtar mid waqtigii loogu tala galay maadaama ciyaartoydu inta badan mar walba marka ay garoonka ku dhaawacmaan ay tagi jireen dalka dibadiisa bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu yahay Maxamed Mustafa waan ku faraxsanahay aad in loo dhiso dhakhtar sporti aad baan u soo dhaweynaa Injury Center oo ku shaqale dhaawacyada runtii had iyo jeer ka imaada ciyaartoyga xillimada garoomada ku jiraan oo kale ama markay tababarka qaadanayaan dalkeena runtii way ku yareed ama mabaynu haysanba in ciyaartooyo ku dhaawacmay halkan oo kale dalka gudihiisa lagu daweeyo farxad weyn bay tahay cidii maanta ciyaartooy ah ee dalka gudihiisa ku dhaawacanta in dhakhaatiirta ay diyaar u yihiin waxaan halkan uga mahad celinayaa mulkiilayaasha furay xaruntan caafimaad oo aan oran karo waa xarun loo baahnaa xilligeediina timid sida adduunyada oo dhan ay ka jirto kalaabku ama naadigu waa inay leeyihiin ama ciyaartoyga professionalka waa inuu leeyahay dhakhtar u gaara ama xarun u gaara oo marka uu dhaawac gaadho uu ku hirto
ilaa marka bilowga uu yahay ilaa dhammaadka intaan tartamada la bilaabin waxaa muhiima in la iska register gareeyo sida xaruntan dahad aan imika joogno kale oo la eego ciyaaryahankaasi wadnihiisu intuu garaacayo sidaa dhawaanba aan maqlay inkastoo aanan joogin waxaa laygu yidhi 2 ciyaartooy oo habeen ciyaaraya ayaa labadiiba ay ku dhinteen iyagoo ciyaartii ku jira taa waxa weeye ciyaaryahanku inuu marka ugu horreeyo la eego oo rikoodhkiisu qoran yahay hadday noqon lahayd wadna garaaciisa hadday noqon lahayd xanuunada uu leeyahay oo aanu ogeyn hadday noqon lahayd dhaawacyada uu qabo in xaruntan oo kale uu kalaabku iska register gareeyo ciyaartooydiisana uu registered ay noqdaan say maxay tahay awood leeyihiin qofkaas ku ciyaarka kubadda wax la eegi karaa waxay kaloo leeyahay maxay tahay saydihiisa inay u badqabaan inuu ciyaaro sidoo kale wax la eegi doono maxay tahay wadnihiisu intee leeg buu shaqayn karaa awood intee leeg buu leeyahay qofkan inuu caafimaad qaba inuu kubadda ciyaaro marka isboortiga laga eego mihnad gaar ayay u leedahay marka kubadda ciyaari jireen anagu cidba nooma eegaysin laakiin maanta qoladan daba nasiib bay leeyihiin maanta maxay tahay helaan meel ay hadday xitaa wax gaadhaan iyo ka horba caafimaadka in la duwayo waxaa ka fiican in laga hortago waxaan aad iyo aad u ammaanayaa mulkiilaha dahad sports injury center oo ah xarun caafimaad oo u gaar ah dhaawacyada soo gaadha ciyaaryahanada waa arrin muhiim ah waa arrin aan odhan karo waxaa keentay horumarka uu ciyaaraha dalku ay sameeyeen in maanta lagu soo dhiirrado in ay arkaan bahdii caafimaadku inay muhiimad leedahay in xarun noocan oo kale la furo weliba fursadda dhakhtar axmed oo arrintaa qofkii koowaad ee ka faa'iideeya ah iyadoo qaar hore ay jireen laakiin arrintaa weliba takhasus gaara u leh aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa muhiimaddeeda ma tilmaami karro ciyaaryahanadii maanta professional ba ayay yihiin waa qaar mushaar ku qaata ciyaartooynimadii waa qaar ku dabara noloshoodii marka in dhaawacyadii soo gaadhay aanay ciyaarihii ka reebin oo la daweeyo aad iyo aad bay muhiim u tahay xaruntani 2 qaybood bay qabanaysaa in ay ciyaaryahanada ka caawiso protection counseling oo lagala taliyo qaabka ay protection u yeelan lahaayeen ay dhaawacyadu isaga ilaalin lahaayeen inaanay soo gaadhin ama jidhkooda adkaysi u lahaan lahaa ama meelaha ay u nugul yihiin loo adkayn lahaa iyo in hadday dhaawacyo soo gaadhaan in la daweeyo waxaa kaloo dheer oo aanu muhiimad weyn u qabna annagu wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha haddaanu nahay in qofka caafimaadkiisa la soo baadho oo aanu taana ka dhigi doonno shuruud in ciyaaryahanka caafimaadkiisa la soo baadho gaar ahaan garaaca wadnihiisa iyo oksijiinta uu qaadan karo qofku